okay waxaan ka hadli doonaa presentation kooban oo cases u badan oo biro loogu talagalay jabka lafaha dhaadheer qaybta dhex markay ka jabaan waxa loo yaqaano diaphyseal shaft fracture focus waxaan saari doonaa indicationiska technique iyo case discussionada waxaan ognahay lafaha dhaadheer jajabkooda inay yihiin waxyaabaha ugu badan ee dhaawacyada ka imaada ha ahaadaan maxaa la dhahaa lafta femurka lafta tibiyada iyo lafaha kaleeto waxaan ognahay sidoo kaleeto in dhaawacyada dadka ugu badan ay saameeyaan ay tahay dadka da-dooda ay u dhaxayso 15 jirada ilaa 45 jirada sidoo kalena marka la isku daro inta dhaawacyada u dhimata ay ka badan yihiin intuu dhimatay HIV malaria iyo TB maadaama non communicable diseases ka focus badan uusan saarnayn gaar ahaan dhaawacyada waxaan qodobkaas in 57% dhimashada ay u dhiganto dadka ay macnaha ay ka badan yihiin dadka u dhinta cuduradan common-ka ah sida HIV malaria iyo TB waa muhiim in lagu baraarugo lafaha aan study-gan ku sheegi doono waa lafta femurka lafta tibiyada iyo lafta humerka oo saddexda lafood ay ugu waaweyn lafaha long boneska waxaan ognahay in femurka iyo tibiyada shaftiga ay ka jabaan primary managementiga ama standard managementiga loo sameeyo ee tahay intramedullary nailing sidoo kale intramedullary nailingkaas gaar ahaan femurka loo isticmaali karo in kor laga soo geliyo wax loo yaqaano antegrade nail ama in hoos laga soo geliyo oo loo yaqaano retrograde nail waxaa jira biro kala duwan oo loo isticmaalo in femurka markii ay jabto ama tibiyada marka jabto la geliyo laakiin low resource setting marka la joogo wadamada dhaqaalahooda iska yar yihiin bukaanadooda ay dan yar yihiin waxaa la isticmaalaa bir loo yaqaano sign nail birtan waxaa alifay dhakhtar Mareykan oo la dhaho Dr. Lewis 1999 haddana waxaa laga isticmaalaa 57 wadan oo low income countries 7,000 oo dhakhaatiir caalamka kala duwan joogto oo orthopedic surgeons Soomaaliya aniga iyo dhakhtar kale aan ku matalayno ayaa birahan isticmaala nus milyan bukaan ah ayaana soo far la geliyay sidii markii la aasaasay mapkan waa wadamada birahan sign nail kala dhahay laga isticmaalo Soomaaliya sida ay u jeedaan low income kan ay ku jirtaa hada same time loo isticmaalaa afar bir ayaa ugu caansan biraha sign nail kala isticmaalo birta kore ee ay u jeedaan oo hool aanan lahayn laakiin afar duleel oo screw-yada la geliya leh waxa loo yaqaanaa standard sign nail mid ugu koreysa saddexda sawir birta dhexe oo qaybta hoose duleeladii aanan lahayn distal locking screws wax loo yaqaano waxay leedahay gano inner cortex-kii lafta ku dhagaayo oo loo yaqaano flutes ama fin nail ayaa loo yaqaanaa midda hoose waa pediatric nail midda afraad Soomaaliya hadda ma taalo laakiin waa hip nail weyn cusub tahay saddexdiisana ugu dambeeyay afartiisana ugu dambeeyay ay jirtaa birahan maxaa loo isticmaalaa birahan number 1 waxaa loo isticmaalaa jababka shaftiga femurka iyo tibiyada sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa jabka shaftiga humerka sidoo kale jababka deysan fresh ahaan acute ahaan haday tusaale ahaan dhacdo osteotomy in la sameeyo due to malunion ama non-union ama deformity kale hadii la saxayo waa loo isticmaali karaa locationka meesha la sameeynayo ay tahay at least shaftiga ama true shaft ha noqoto ama proximal ama distal shaft indicationada kale waxaa kamid ah pathological fracturada pseudoarthrosiska tibiyada non-union malunion and so on study-ga markii ugu horeysay birahan la siiyay waxay ahayd 2022 case ugu horeeyay 3 biri kadib ayaan sameeynay caseskiina waa in la wadaagi doonaa waxaan rabaa inaan xog yar oo baraarujin ku daro average qoyska Soomaaliga ah waxa laga yaabaa in $200 ka yar ay soo gasho haddii qofka lafaha aan tilmaamayo uu ka jaban waxa laga yaabaa isbitaalka average xamar ku yaalo ama Soomaaliya ku yaalo inuu $1,000 charge gareynayo qofka marka haddii ka dhaqameedkii uu yahay $20 qaliinkiina uu $1,000 yahay qofkiina $200 iyo ka yar ee qoyskii soo galayso su'aashu waxay tahay intuu aada marka dhaqameedkii $20 uu aada mise wuxuu aadaa dhakhtarkii $1,000 uusan awoodin way iska cadahay badankooda waxay bilaw hore ku hormaraan meel traditional oo dhaqameed dhakhaatiirta lafahana waxay u yimaadaan ayagoo complicationada sida jilibkii oo adkaaday kala goyskii oo adkaaday meeshii deformity ku dhacday compartment syndrome ayagoo emergencies ama complicationo kale leh ayay imaadaan tusaale bukaankan waa bukaan sida dhaqanka caadiga ah oo dhaqameedkii ku hormaray 22 sano jiray
jowhar uu ka imaaday banooni dheelay in iska active oo mechanic shaqadiisa tahay 4 maalin ayay ka dhaqameedka wixii ku xirxireen alwaaxyadii iyo waxyaabihii kadibna jabkiisana wuxuu ka jabnaa qaybta hoose ee TB isbitaalka waxa la keenay asiga oo lugtiisa bidixda sida ay u jeedaan xarkii ku dhuqsan yihiin afartaas habeenna la dhahay kabka ayaa raysanooyay ee dul qaado lugtii sida ay u jeedaan waa gangrene waxay u baahan tahay emergency amputation bukaankaasna 22 jirkaan lugtiisii sidaas ayay ku dhamaatay micnaheedu maahan traditionalka inay wax badan wax kasta khaldaan waxyaabo badan oo cilmi ahaan ay yaqaanaan oo ay sameeyaan way jiraan laakiin waxay u baahan yihiin in la update gareeyo insha Allah as a team of orthopedic waa ka shaqeynayna waana ka wada shaqeyn doonaa technique loo isticmaalo labada femur marka la joogo birta korna waa laga soo geliyaa antegrade hoosna waa laga soo geliyaa retrograde inkastoo meel walba ay leedahay absolute iyo relative indication femurka markii sinal kan la gelinayo most of the time bukaanku wuxuu noqon karaa positionkiisa supine ama lateral fracture ka la reduce gareena incisionka wuxuu ku aadan tahay posterior and superior to the greater trochanter nailka waxa laga gelinaa medial edge-ka oo greater trochanter-ka kadibna reaming-ka la socdo waa manual kadibna nailka ayaa intii la geliyo ayaa proximally distal locking screw la gelinaa retrograde marka ay tahay again bukaanku waa supine markaan lateral ma noqon karo reduction-ka fracture marka la sameeyay incision-keedu waxay la mid tahay medial parapatellar approach-ka total knee arthroplasty-ga loo sameeyo kadibna waxa laga gelinaa nailka Blumenset line meeshii loo yaqaanay reaming-kii manual-ka marka la sameeyo nailkii ayaa intii la geliyo nailka retrograde-ka la gelinaa waxay noqon kartaa mid lockina iyo mid non lockina TB-da ayadana sidaas oo kale waxay leedahay techniques humorka sidoo kale humorka sinalka waa loo isticmaalaa inkastoo primary fixation method-ka humorka ilaa xad loo advocate gareeyo blade-ka haddana optionska way kamid tahay waxaan rabaa waqti ugu yar daladeed inaan cases-kan 3-4 kamid in la wadaago bukaankan waa 25 jir saa u jeedaan wuxuu ka jaban yahay TB-da shaftiga maalintii qaliinka la sameeyay post op day 1 nailka ayaa la geliyay nailka tilmaamay aan sheegaynay infrapatellar approach ayaa TB-da u isticmaalnay 6 usbuuc kadib qaliinkii follow up kiisi bukaan walba waxa laga qaadaa sawir sida hore aan ku soo aragnay oo la dhaho squat and smile squat and smile ka waa sawir la ogaaday bukaanka haduu sidaan u kala loobsan karo una dhoola cadeyn karo asigoo xanuun aanan haynin inay ka tarjumayso in laftii ay raysanayso bukaankiina uu xanuunka kiriya bukaankan 9 bilood kadib almost laftiisii afartii cortex radiographic waxa la dhahaa union score-kiisa aad ayuu u soo dhameystirmay case kaleeto oo femurka ka jaban oo antegrade nail aan u sameynay oo 19 jira dadka badankooda sida ay u jeedaan waxay ku dhaawacmayaan mooto ama gaari 6 usbuuc kadib 19 jirkii saas ayuu u kala labsanaa jilibka inta uu laamayo waa meeshii nailka laga geliyay bukaanada wajigooda ayaan qariyay laakiin dhamaantood way dhoola cadeynayaan nailkii 9 bilood kadib sidaas ayuu u fiican yahay bukaankan open fracture ayuu ahaa sida standardka practice-ku yahay waxa loo sameeyay external fixation 2 weeks 3 weeks kadib waxa loo sameeyay markii infection-kii la controlay nabarkii la xiray waxa loo sameeyay antegrade nailing-kaas oo TB-da bukaanka HIV waxa xusid mudan practice-ka bukaanada HIV-ga qabo team dhakhaatiir oo Dr. Cabdisaaq kamid yahay cilmi baaris ay ka wadaan in xoogaa la faquuqo annaga waa u adeegnay waa ilaa xad waa bukaankii sidii bukaanadii kale ayaa loogu adeegay bil kadib birihiisaas ayay u yaalaan at the same time 6 usbuuc kadib ayadoo ismaal gareynayso wajigeedii la qariyay iyo 2 sano kadib ayadoo birtii laga bixinayo maanta birtii laga bixinayo kadib ayay tahay case-ku ugu dambeeyo oo aan ku khatimayo waqtigu iga yaraaday daladeed waa case humorka challenge-ga in la geliyo sinal waa in ay dhaawac gaarsiinayso rotator cuff-ka supraspinatus-kii iyo murqihii kale ee rotator cuff-ka meesha laga gelinayo daladeed bukaankan wuxuu waa bukaan 57 jir ah danyar financially aanan awoodin nailka lacag la'aan lagu gelinayo sida daladeed markii nailkii la geliyay 6 weeks kadib x-ray-giisii waa taasa ilaa xad abduction internal external rotation activities-kii daily living-ka ugu baahnaa uu sameynayay unfortunately 3 bilood kadib waxaan u jeednaa in maxaa la dhahaa fracture site-kii uu wili wax kala aysan sameysmin sida ognahayna haddii 6 weeks up to 3 months wax improvement aysan lahayn
humeral shaft site-kii fracture-ka waxaa la recommend gareeyaa ama waxaa la predict gareeyaa in high risk knee union uu jiro laakiin bukaanku wuxuu insist gareeyay in time la siiyo welina timingkii ayuu ku jiraa caseska way badan yihiin laakiin waqtiga ugu yar daraadeed waxaan u gudbaa conclusion-ka waqtiga ugu yar aawadeed conclusion-ka waxaa ognahay waxa ugu fiican ee dhaawacyada in la daaweeyo waxaa ka muhiimsan in laga hortago in laga hortagana waxay u baahan tahay saddex shay in la yareeyo maadaama saddexda shay ugu badan oo jabka keenaya ay yihiin shilalka ha noqdaan kuwa mooto kuwa gaari iyo kuwa meelo laga soo dhaco iyo shilalka dhaawacyada saddexdoodana waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo ka hortaga sign nail oo aan birta aan isticmaalayno oo maxaa la lahaa isbitaalkeena taalo waxaa la ogaaday almost nus milyan bukaana markii la geliyay inay aad u anfacayso bukaanada limited resource setting ka joogo at the same time birtan waa lacag la'aan bukaanka lacag la'aan ayaa lagu geliyaa hay-addu kuu soo dirayso lacag la'aan ay DHL-ka ayadaa kaa bixinayso training capacity building dhakhaatiirta isticmaalayso way u isticmaalaysaa inaan ka faa'iidaysana u baahannahay oo bukaanada danta yarta uga faa'iidayno aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.